waxaan rabaa waa la hadlay odayaashiiba waxaan maleynaa cali qaansiweyn inuu ahaa wuxuu ka dhawaajiyo yiri meeshan hadal waxba kama taraayeen dadka dagaal ay ku jiraan dadka maxaa loo hayaa warkaas war garah waaye war in laga jawaabo loo baahan yahay waa yahay dawladana hawshaas waa ku gudi jirtaa runtii laakiin annaga naftayna annaga dawladda ka mid ah sida aad la socotaan wafdigan hadda maanta idin soo gaaray waxaa ka mid ah oo aan hilmaamay oo aan rabaa runtii inaan si fiican ugu mahadceliyo maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir haddii uu soo xasuustay walaalahood reer guulo burto iyo weliba la taliyaashii madaxweynaha oo ay meesha joogaan oo baarlamaankii uu joogo oo golahii wasiirada ay joogaan oo xildhibaanada ay joogaan horta cid idin ka maqan meeshaas ma jirtaa muu malaynaya cid idinka maqan inay jirto waa fahmi kartaan in dhammaantiin in dhammaan dawladda iyo organiska kala gedisan oo ay ka kooban tahay inay idin garab istaagan yihiin waxaa intaas dheer oo aan rabaa inaan u sheego dadka halkan joogo horta dadku haddii aysan ayaga wax qabsanin waxba looma qaban karo ilaahay wuxuu yidhi laa yuqayiru llahu maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim adinka markaa xaaladda a ku jirtaan ay wax ka beddeshaan buu ilaahay in idin garab istaagaa hadda annaga xaaladdan ku jirnay waa maxamed cabdiqaadir waasiin ka hadlay dagaalkii inay martabaan ka soo bilaabeen ilaa ay hadda ilaahayna waana garab istaagaa dadkii awal shakiga qabayna waana garab istaagayaan sababtoo ah waxaan tusinay adinkana aad tusteen in shabaab lala dagaalami karo oo meel la saari karo maadaama aad saas tusiseen hadda wixii ka dambeeyo garab istaag waa filanaysaa hadda wasiir khadiija waxay ka dhawaajisay abaabul yar oo ay haweenka ururka haweenka soomaaliyeed oo ay weliba ay hormuud ka ahayd guddoomiyaha koobaad ee baarlamaanka iyo marwada madaxweynaha inay yacni wax kale iska daaya inay gacmahooda buskud ay ku soo dubeen inay soo dhiibeen intaas wax ka weyn oo mooralka dadka dagaalka ku jiro mooralkooda kor loogu qaadi lahaa anigu ma garanayo marka waxaa la rabaa inaad ogaataan in idin garab istaagan yahay annaga halkanaan bays ka dhigan doonaa insha allah inta naga maqan halkanaan bays ka dhigan doonaa dagaalkana waa soconaa dagaalka waa soconaa dawladda wixii xaggeeda idinka jira annagaa mas-uuliyaddaas qaadayno ama ha noqoto xukuumadda uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha ama inaan la hadalno u tagno madaxweynaha ha noqoto waxii baahidiinna ah waa ognahay anigu meeshaan magaaladan aan ku dhashay aan ku koray waxaan rabaa dadkayga dhibka gaaraya inaan la qaybsadaan rabaa haddii aan wax ka qaban karo aan ka bedeli karo inaan ka bedelaan rabaa marka horta mid waa ogaanaysiin laydinkama aamusno waa laydin garab taagan yahay waa idin maqannahay waxa aan hadda keennayna wax ma aha dawladda aan ka keennee waa dad mooralkiina inay dhisaan gobolka haweenka gobolka banaadir maxaa la yidhaahdaa guddoomiyaha baarlamaanka wasiir khadiijo abaabul ay bilaabeen ayaa hadda laydinku yimid sida ay sheegtay annaga waxaan wax u wadnana ma aha dadkee abaaraha ay saameeyeen waxaan wax u wadno oo aan rabno inaan garab istaagno waa ciidanka fulinta taagan ee dagaalka ku jira marka insha allah siday maama khadiija ka dhawaajisay guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa horta dagaalkan iyo abaabulkiisa bilow ka ahaa annagana ma rabna inaan guddoomiyaha dhinac marna ma rabno waxaan rabnaa inaan garab istaagno inaan la shaqayno inaan guubaabino inaan mooralkiisa dhisno in al-shabaab laga saaro gobolka hiiraan keliya ma ahee soomaaliya oo dhan in laga saaro sidaa darteed wasiir khadiija siday sheegtay waxaan rabnaa inaan ciidanka gaarsiino ilaa iyo 450 neef oo ari ah 10 neef oo geel ah oo ciidanka aan rabno inay dagaalka ku galaan wixii ka dhimanna intaasaan sheegnayna ma aha
wax dowladda ka yimid hadda maaha waa wax abaabul iyo tabarucaad dad raba moralka inay kor u qaadaan keliya ka yimid waayo marka waxaan rabnaa tii dowladda waa noo dhiman tahay annagaa ku maqan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha annagaa ku maqan waa u tegaynaa wixii baahidiinana waa gaarsiinaynaa waana liidina soo gaara